بايري هيست وحلال دليل كان وحاشا يري إمام الغزالي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وليفن سوماليد هدان ما يشاني أفكم بانك هذا لا يوان هزم ذو نهاية هداية توفيق ملها فني هساية مركاد هريو بدتاد سجران هدان تبرهينه هلك يجد غوباتك جران مرين هبوغنا سلادها بركين مهوليان قرنا ما هجاجو هيا على السلاد مكعنو وانكا هردنايا heesaha iyo musiga la isku garaacay ee dadka lagu soo jiidanay ee masraxiyada iyo fagaaraha la keenay bal maxay shariicadu ka qabtaa leeynaga waxayna xukumaa kitaabka Ilaahay iyo sunnaha Rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka wixii xalaal ah waynu hoggaansanaa wixii xaaraan ah waynu ka fiirsan nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay saddex arrimood oo xaraama inay xalaalaysanayaan afar arrimood weey la yakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna al-hira wal-hariir waxay xalaalaysanayaan ummad imaan doonto ummadayda kamid ah zinada iyo xariirta dharka xariirta ragga waa ka xaraam wal khamra wal maazif khamrada iyo waxa weeyaan heesaha ayay xalaalaysan doonaan haddaba u fiirso khamrada iyo zinada iyo xariirta oo tahriimkoodu si cad waadix u yahay waxa afar looga dhigay heesaha iyo macaasifta ay afar looga dhigay waxa kamida hawaraacitaanka iyo nafta in loo yeelo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xaaraantimeeyay heesaha oo la tiriyo ama bas la dhageysto waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomihiisa uu ka mamnuucay aayado quraan abu Ilaahay ku cadeey nabi maxamed ba alayhi salatu wasalaam min badan ka digay oo cadeey raadka xunaay ku leeyeen qofka qalbigiisa amalkiisa xubnihiisa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa noloshiisa guud ahaan cidibta xuna ka dhalata adduunyada inta la joogo iyo aakhiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta la hortago Ilaahay baa wuxuu yiri wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilm dadka waxa kamida kuwa ku bedelanaya xaqi iyo diintii Ilaahay uu soo dajiyay ee Ilaahay uu faray inay dhageystaan inay ku qowlaan ay ku hadlaan inay qulubtooda ugu raaxeeyaan inay raacaan ay ku amal falaan kuwa ku bedelanaya lahu al-hadith wa hada al-kasta oo baadila oo heesuhuna liiskiisa meel sare ay kaga jiraan arrintaasi inay jahli tahay buu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka waxa kamid ah Ilaahay qaar iibsanaya war liito bila macna si uu dadka uga lumiyo dariiqa xaq ah diintii iyo dariiqi xaq ahana uga dhigto mid lagu dheeleero dadka noocaas ah sida u dhaqmaa cadaab duleeyay leeyahay حديث كلا النبي وحي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف أمتها واحد دحية دحية دونة وأهان دونة إن دقاحان الله سبحانه الله سبحانه يقال كمدا وعقوبة سبحانه الله كانوا واحد دحية دونة قاركود إن دول كل لقوي واحد دحية دونة قاركود إلا النسخه وحويان لدوريو oo la bedelaba saddexda arimood ayaa ummadan dhexdeeda dhici doonta wamata daaka ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisa oo arinkaasi goormee dhacaya wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam idha dhaharatil qaynat gabdhaha hoobalada ah oo heesa markay soo daahiraan wal maazif alatul malahi waxyaalaha lagu heesana banaanka la soo dhigo وشربت الخمور خمردنا اللعبه انتاس مركي اي مادان ومدان وحويان
ciqaabta noocaasa ayaa ku soo socota